War degdeg ah oo iminka soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa warqad ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya maxkamadda gobolka ee Banaadir ayaa waxaa lagu sheegay in lagu soo qabto Axmed Madoobe amarkaasna oo ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya. Ujeedada ayaa ah amar soo qabasho ah oo iyo weliba ka hor keenista maxkamadda si waafaqsan qodobka 40 ilaa qodobka 41 ee xeerka dowladda federaalk Soomaaliya. Haddaba tixraaca sumadiisu ay tahay ma'sa xariiqin ga xariiqin 76 kuna taariikhaysna 26 bisha 11 2024 ayaa ujeedadiisu ay tahay ogolaansho la siinayo in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya in ay markaasi soo qabtaan Axmed Madoobe oo asigu ku dhawaaqay doorasho oo asigu isdoortay oo shakhsiyadiisu dib isku doortay oo ku dhawaaqay inuu yahay madaxweynaha Jubbaland markii saddexaad. Haddaba Axmed Madoobe ayaa dhowaan waxa uu ka soo horjeestay dhammaan nidaamka iyo maamulka xukuumadda federaalk Soomaaliya iyo weliba dowladda federaalk Soomaaliya. Maanta ayay ahayd markii xildhibaano ka soo jeeda Jubbaland ay foodo iyo buuq ka kiciyeen xarunta baarlamaanka Soomaaliya oo la doonayay in lagu ansixiyo guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya oo markaasi loo idmaday inay ka shaqeeyaan sidii ay Soomaaliya u gaarsiin lahaayeen doorasho qof iyo cod ah. Haddaba amarkan ka soo baxay maxkamadda sare ee gobolka Banaadir ayaa markaasi waxa uu noqonayaa mid marka Axmed Madoobe ka dhigayo mid dambiile ah ama eedeysane, maadaama amarka maxkamadda gobolka ay ka soo baxday taa maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya oo ka soo baxay. Taasi waxay cadeyneysaa Axmed Madoobe inuusan ahayn madaxweynaha Jubbaland. Haddaba wixii faahfaahinaya ka soo kordha warbixinadeena dambe ayaa dib ugu daaban doontaa. Fadlan haddaad nagu cusub tahay follow inoo dheh page-ka YouTube-kana subscribe inoo saar. Mahadsanidin.